السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صاحبada halkan ku xiran waa idin salaam saaxiibayaal casharkeena aan rabno inaan halkan soo gudbino wuxuu noqon doonaa cashar muhiim ah qof kasta oo muxuu ahaa jecel inuu luqadda English ka barto casharkan waxaan xooga ku saarayaa inaan soo gudbiyo casharo la xiriiro dhawaqa Englishka dhawaqa Englishka akhrinta iyo dhawaqa isma lahan Soomaa so caqabado fara badan ayaa ka jiro maxaadan ogeyn marka waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo maanta shay muhiim ku ah oo haddii aad fahanto maxaa ahaa wax badan fikirkaaga oo isbedeli doono haddii aab yiraahdo intaana casharka bilaabin ka hor inta hore noola joogto waa mahadsan yihiin saaxiibadeeda u gudbiyaano haddii aan ugu cusubtahay marka kugu horeysataa videogan aragtana soo dhawow subscribe let's start our English pronunciation halkan waxaan ku soo gudbinaynaa English pronunciation phonetic symbols sumadaha dhawaqa English dhawaqiisa iyo qoraalkiisa way kala bedelan yihiin qof kasta ayaa arkay challenge-gaas so waxaan rabaa challenge-gaas maanta inaan xalliyo oo in badan inaan inta tabarteedaan isku dayo inaan xalliyo okay waxaan leenahay phonetic symbolska waa dhawaqa aad maqlayso waxaana loo qoraa sida Soomaaliga loo qoro oo kale haddii aad qoraalka barato wixii aad maqlayso phonetics oo u bedeli kartaa waa symbol good phonetic symbolska marka koowaad waa 44 symbol ama sumad symbol waa maxay waa sumad 44 symbol waa 44 symbol waxaa loo qaybiyaa marka koowaad laba loo qaybiyaa waxa weeye vowel sounds iyo consonant sounds vowel sounds iyo consonant sounds numberka 44 ka ahaa laba ayaan u qaybinay waxaan u dhahaynaa qaybtan vowelka waa 20 qaybtan consonantska ahna waa 24 sida caadiga ah English vowelka shan waa a iyo e iyo i iyo o iyo y ama a e i o u shantaas oo combination loo sameeyay balse waxaa arki kartaa in intaas dhawaqa uu ka badan yahay waxaas ayaan rabnaa inaan maanta soo gudbino okay single vowel sounds vowelka haddii aan ka bilaabo waxaan leenahay vowel soundka waxaa loo qaybiyaa labo single vowel sounds iyo diphthong which means diphthong waxa waaye two vowel sounds together laba vowel sound oo kuwan ah oo la isu geeyay oo dhawaq cusub soo saaray ayay noqon doonaan okay aan ku bilaabo marka single vowel soundska waa 12 markasta numberka inaad la socoto muhiim waaye diphthongkana waa 8 waaye okay single vowel soundska 12 ayaan u qaybinaynaa 12dii waxaan u qaybinaynaa laba qayb ayaan u qaybinaynaa shaqal gaab iyo shaqal dheer short single vowel sounds iyo long single vowel sounds ayaan u qaybinaynaa okay shaqal gaabka waa kanaha asiga iyo macalaha example sentences example wordskiisa waa kanaha okay number 1 dhawaqan waxaan leenahay waa a waxaan leenahay a-da Soomaaliga ku jirto oo kala waa a sida man phonetic symbols hadii loo bedelo man marka waxaan phoneticska goormee ku anfacayaan su'aashaas ayaa laga yaabaa inaad isweydiiso waxay ku anfacayaan markii lagu soo diro presentation ama cashar lagu soo diray soo jeedi lagu dhaho waxa ku qasban tahay inaad ereyada dhawaqooda iska soo saxdo oo si sax ah adiga u akhri karo inaad dadka soo hor istaagto haddii kale waxa kugu dhici doono dadka qaar inay dhawaqaaga xogaa somehow yar kugu qoslaan so waxa u baahan marka inaad iska soo saxdo phoneticska waxay ku qoran yihiin dictionary-yada Google-ka daa'irad geliso kale uu ku soo baxa si sax ah u akhri karee marka waxaan leenahay marka waa a oo wax yar laakiin inay fidsantaa la moodaa waa a-da Soomaaliga meesha ka jirto kale waxaan leenahay man waayahay man waa dhawaqeedii waa tanaha waa soo qaaday kanaan bedelay waxaan u bedelay phonetic symbol waxaan ka dhigay man okay kan waa a sida bed kan wax ku muuqda la akhriyaa si Soomaali camal waayo okay so it's waxaan leenahay sit okay kan waa o sida hot
okay. This one is علينا هاي O سيدا bot okay. This one is A ودوق A كان waa A saddex A waaye laakiin maxay kula bedeleeyeen kan waxa laga helaa kaliya kana laga helaa okay waan xogaa yara uu shidan yahay. This one waa A laakiin way yara gaaban tahay sida tan camal ma u fitsana way yara gaaban tahay waxaana laga helaa meelaha owda ah oo haddana A loo akhrinayo ama meelaha meelaha yuuda ah tusaale erga cut oo kale okay erga cut oo kale waa u A loo akhrina owdana waa laga helaa sida hadda tusaalaha kam aan qaadano oo kale sidoo kale waxaa laga helaa O iyo U israacday O iyo U israacday O iyo U israacdana waa laga helaa sida country oo kale waa lagu arki karaa way so waxaan leenahay waa A way gaaban tahay wayna shidan tahay waxaan leenahay come kana waxaan leenahay man oo yara inay ka yara fidsan tahay la moodaa okay come way waa come. This one is A oo shwa sound ay dhahaan waa mid aan shidnayn unstressed way ma shidna waxa shardiga oo kuwan kaga bedelan yahay asiga more than 2 syllable wordska ayaa lagu arkaa wixii laba syllable ka badan ama laba dhawaq ka badan ereyada laba dhawaq ka badan ayaa lagu arkaa hadda fiiri sister oo kale waa sis iyo ta so qaybtan gadaal ayay kaga jirtaa sister waa shwa sound waa khafiif okay oo aad u gaaban sister okay waxaan rajaynayaa inaan qaybta oo shaqal gaabkan isla fahanay dhawaqyadana waa almost Soomaaliga iyo meeshan waa iska ogyihiin A E I O U waa shanta aan isticmaalno oo sidoodii ah waaye qoraalka bisa kala bedelan qoraalkana just practice and waa fahmi doontaa. This one O U ama OU israacday waana A. This one meesha aan shidnayn oo ku jira unstressed waaye waa dhawqiisna waa A okay. halkan way maaw halkan waxaan ku haynaa long single vowel sounds waa shaqal dheer meeshan shaqal dheer ka dhigi jirnay waaye diftankana qaybta shaqal dheerka ayuu ku tirsan yahay maadaama xogaa uu fidsan yahay ama uu dheer yahay ama la jiidayo okay. Halkan single vowel sounds shaqal dheer shan waxaan ku qaadanaynaa waa shan waxaan leenahay A waa kan oo la fidiyey A oo la dheeriyey sida arm oo kale heart oo kale hearty okay. This one waxaan leenahay waa dhawaqana waa a little bit funny waaye Soomaaliga uu ku jiraa sida caadiga ah waa laga helaa sida gaagaala oo kale gaagaala ma dhahayna gaagaala lana daas sidoo kale faa'iido oo ku jira okay in badan uu ku badan yahay waa helay haddii si fiican u raadiso oo arki kartaa waayahay. This one waxaan leenahay arm oo kale this one sida an oo kale and this sound okay phonetics-kiisana waa kana marka phonetics-ka wuxuu ku fiican yihiin sida Soomaaliga camal loo aqriyaa wix silent waa silent ma soo gelayaan qaybta phonetics symboliska ma soo gelayaan okay sida arm oo kale good an oo kale kasbasho lacagna shaqas e waa idi oo la dheereeyay waaye sida t labadaas dhibcood saas lagu gartaa. This one is waxaan leenahay food sida food okay. This one is sida more okay. Thank you very much. And halkan uu imaam marka halkan waxaan ugu qoran diphthongs waa maxay waa labadan laba xabo kuwana madax la isu gelina then waxa ka soo baxayo vowel ama dhawaq cusub ayaa ka soo baxayo okay. Diphthongs waa two vowel sounds together laba xabo kuwana oo la isu keenay okay. waa 8 ayagana numberkooda waa 8 okay. waxaan leenahay this one is A this one is A this one A oo sax A
ergana ka horgeynay a we say a sida name name qaabkaas phonetic ahaan kugu soo baxaa dictionary-ga hadda ka fiirso kale waayahay halkan waxaan ugu xigo erayga air this one is a and this one is a so air I'm gonna say air where phonetic symbols kedana where okay this one is ear e and sorry this one's e and ear so here let's say here okay and here okay this one is this one is see that tour sure poor okay something like that all right okay this one is and this one is oi let's say oi can I this one logi oi I'm gonna say oi this one is I this one is plus this one this I agree then waxay noqonay I sida y phonetic symbols ka y wix silent ya waa silent phonetic sama soo muuqanayaan this one is ow and this one so it's gonna be how okay this one is o and this one okay so kan labadan waa dheer yihiin maadaama shaqal dheerka laga soo qaatay kan xoogaa way ragaaban yahay so wuxuu noqon doonaa marka kan loo eego xeer inuu ka yara bedelan sound ku fahmi calaamadaas ku kala bedelan yihiin okay sida no oo kale good waxaan rajeynayaa inaad wax badan ilaa hadda aad si fiican ula socoto halkan soo wareeg marka consonant consonant-ka dhawaaqa consonant sound marka lagu xasuusiyo mar walba waxaa la socda sound dhawaq waaye wixii hortaada ka muuqdo waxaan ahayn ayaad maqlaysaa mararka qaar marka waa inaad consonant sound ka taqaano 24 waaye consonant sound-ka qaabkan u sameynayna consonant sounds-ka waa labo waxaan u qaybinaynaa had consonant sounds iyo simple consonant sounds had maxaa loola jeedaa had consonant sounds waxaa loola jeedaa in xarafkan hortaada ku qoran oosan sii ahaa doonin sida hortaada uu yahay uu isbedeli doonaa macna qoraal cusub ayaa laga rabaa okay ch waxay isku rogi doontaa oo ah waa t iyo sha oo la isu geeyo child oo kale canuga child oo kale okay qaybta hadka ayaan ku hormaray okay sh sidoo kale waxay isku bedeli doontaa qaabkan isku bedeli doontaa sida qaabkaas ay noqon doontaa th-ta waxay noqon doontaa labo waxay noqon doontaa tha camal ayadoo loo akrinaayo ayadoo tha camal loo akrinaayo iyo ayadoo dha camal loo akrinaayo so this one the okay this one is wuxuu ka imaadaa dhawaqan wuxuu ka imaadaa j ama ge ayuu ka imaadaa waana j meeshan j kanaano ge gi gy weelo badan aad ku arki kartaa sidoo kale dhawaqan waxaan leenahay waa horta waa d oo inta ka timid iyo dhawaqan oo la isu geeyay j kan waxaan leenahay waa j badanaa waxaa lagu arkaa SUSI ayaa lagu arkaa sida usually oo kale okay SUSI television oo kale television oo kale okay qaabkaas uu qormi doonaa si fiican soo fiiri y-da waxay isku bedeli doontaa qaabkan waxay noqon doontaa markay tahay aa loo aqrinaa qaybta hadka ka mid tahay waxaan leenahay n plus k ama n plus g waxay noqon doontaa
okay intaan waa inta ugu muhiimsan oo basic ah ayagoo si faahfaahsan oo tusaalooyin badan la sameynayo hadduu aaba idmo waa soo sameynayaa haddii aan dhiirigelin badan idinka helo waayo oo aan arko dad soo gaaraya heerka meesha aan hadda marayo okay halkan waxaan ugu qoran symbol waxaa loola jeedaa siday u qoran tahay ma iska bedelayso okay siday u qoran tahay ma iska bedelayso sida ba'dayda unba iska ahaanaysaa marka la akhrinayo qaybtan phoneticska sida Soomaaliga camal loo akhrinayo labana loo qaybaa voiceless consonant iyo voiced consonant marka wax yar inay yara isbedelaan laga yaabaa okay this one is ba d g k l n r s okay t v w yo z okay qaabkaas loo akhriyaa waxaan rajeynayaa qaybtan inuu very simple yahay capitalka lama isticmaalo r caadi ah la isticmaalaa okay tan sidoo kale capitalka lama isticmaalo waayahay mar kale aan si general ugu soo celiyo casharkan halka maanta ku qaadano waxaa la yiraahdaa pronunciation-ka waa qayb muhiim ah ardayda la baro ardayda waxay ka caawinayaan goorma ku anfacayaan waxay ku anfacayaan markii wax soo diyaarsan lagu dhaho amba hadal lagu dhaho waxyaabaha qaldi lahayd ayaa iskaga soo hagaajinay soo مثلا eraya badan jiro oo si qaldan dadku u akhriyaan sida oo dib badan kuwaas aadi waa ka badbaadiyay macnaha kuwaas waa ka badbaadaysaa si qurxoon ayaad wax soo diyaarsan kartaa si fiican ayaa wax hal doontaa insha Allah